waxaan nahay dadkii ka dhiidhiyey oo u istaagay in ay ummadda shacabka iyo tiinta ay aruursanayaan ka badbaadiyaan annaguna waxaan nahay guddi saraakiil oo gurmadkooda wata guddigaas oo uu madax u yahay guddoomiye ka yahay Warsamo Diirshe anna aan guddoomiye ku-xigeen ka ahay waxaan u nimid Cado Kibir inaan garabkiina istaagno wey wax allaala wixii aan awoodno oo karaankayga inaan kala qayb qaadano wey waxaan in leeyahay waaba u taagantiin waan u diyaarsantiin ka faa'iideysta idinkuna ninna sharaf ku heli maayo hadalna waxba tari maayo waxba nooma tarahayo hadal inta ay nimanku meelahan agteena weli ay dhuuntaagayaan hadalba nooma eka hadalku wuxuu noo qurxoon yahay markii deegaankayga nimanka aan ka saarno markaasuu hadalku dhihis noo leeyahay hadda meelihii aan joognay aan weli joognaa markaa nimanka waxaan si fiican ugu hadli doonaa markaa nimanka meesha aan aaga ka saarno oo ay banneeyaan waana og yihiin ayaga laftoodu in aysan markaan wixii ka dambeeya aysan cirku luli doonin way og yihiin idinkana culummada idinla hadashay nimankan waxay yihiinna waa laydin sheegay waqtina agagaarkiina waa ku qaateen oo waa barateen oo inaysan culummadu idinkaga been sheegayn waa aragtaan diin kuma dhowrsadaan diinna kuma shaqeeyaan markaan kori hoos u fiirinay waa kuwii khulafaa ur-raashidiintii qaar ka mida dilay wey oo lahay ilaahay inaan ugu dhawaadna markii la soo qabtay war maxaa u dishay ilaahay inaan ugu dhawaadaan rabay ninkii khulafaa ur-raashidiintii rasuulku ka ballamay inta dilay yiri ilaahay inaan ugu dhawaadaan rabay waa diin habaabay ee diin ma hayn ayaguna waa sidoo kale waxay uga duwan yihiin lama arko naftiinna iyo maalkiinna ay duulaan ku yihiin iyo weliba karaamadiinna iyo sharaftiinna ay duulaan ku yihiin laba isu keen garab taalla marka idinkoo ihaanaysan oo ay idinka kor mareen oo waxay rabaan idinka samaystaan inaad carradan si xun u joogtaan idinkoo sharaf leh kiina nool inuu sharaf iyo cisi ku noolaado labadaas isu keena garab taal ma wax kala jira Allahu akbar dadka hadalka laga dhihi og yahaana laakiin waa xanaaqsana intaas ay igu kaliftay inaan labada eray idin iraahdo sidaas daraadeed nimanka aan iska dhicino waa naga liitaan meelo fogfog bay ka yimaadeen maanta waxa taqaaneen meeshay joogan iyo meeshay ku sugan yihiin iyo meeshay ku gambanayeen iyo geedkii harsanay inta waa taqaaneen wax kale idin ma lahayo waxaan leeyahay nimanka wadda kasta u fariista meel allaala meeshaad ku aragtaanna ku dila kii isi soo dhiibana badbaadiya waa ummad Soomaaliyeed qabta oo badbaadiya kii aan is dhiibin ee dagaalamana dila ninkii dagaalamaya asxaan ha u samaynina deegaankiinana ka badbaadsada oo ka cayriya annaguna garabkiinana Allahu akbar